Waxaa xalay ka dhacay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha cusub dowladda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon Saacid. Soomaali fara badan ayaa isku soo baxay waddooyinka waaweyn Johannesburg kuwaas oo muujinaya sida ay u taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha cusub uu madaxweynaha ku dhawaaqay. Dadweynaha Soomaaliyeed ku dhaqan South Africa ayaa si weyn u soo dhaweeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha, waxa ayna sheegeen inay ka rajeynayaan mid isbeddel waddanka u keena. Waa kuwan reer Johannesburg sida ay u arkaan. Qontii sideedii waxaanu ku dhashay gobolka Galgaduud waa dhaqaaliyahan khibrad dheer u leh dhanka ganacsiga. Dr. Cabdi Faarax Shirdoon waxa uu ka qalin jabiyay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed ee Gaheer sanadkii markuu ahaa 1983 taas uu ka qaatay shahaadada bachelorka ee dhaqaalaha. Saacid ayaa sanadkii 1983 ilaa 85 ka soo shaqeeyay wasaaraddii maaliyadda iyo beeraha uu ka ahaa dhaqaaliyahan. 1985 waxa uu u wareegay ganacsiga gaarka loo leeyahay waxaana ahaa milkiilaha shirkadda loo yaqaano Shirdoon International Ltd. 1991 ayaa uu guuray magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Dr. Cabdi Faarax Shirdoon ayaa loo doortay May 2012 gudoomiyihii ugu horeeyay ee golaha Rajo Farm. Saacid waxa uu leeyahay 4 caruur ah iyo hal xaas ah oo magacaabo Caasha Xaaji Cilmi oo ka tirsan xildhibaanada Soomaaliya. Dr. Cabdi ayaa shalay 6 bisha 10aad 2012 waxaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya. Waxaa laga sugaaba inay ansixiyaan golaha baarlamaanka. TV ga caalamiga Royal 24 magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika.